السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال دينا علينا قصوا ويدي فيسبوك ماسنجرك أيا وحاي لهاي فرتا مكو أغان كرا بكردا قبادا بكردا فرتا إلا قو أغادو وحاي كحراتهاي فرتا الاستعمال أيوم iyo qofka isticmaalaya iyo gabadha loo isticmaalaya daadeeda intaas ayay ku xirantay hadii farta uu qofka isticmaalaya uu yahay dhakhtar wuu ku ogaan karaa farta uu isticmaalayana ay tahay markaas farta ay dhaqaatiirtu ay isla garanayaan wuu ku ogaan karaa sababta dhakhtarku farta ugu ogaan karo laakiin dadka kale ay ku adag tahay inaanay ku ogaanin ay ku adag tahay inay ku ogaadaan waxa kamida xubka bikrada ee la yiraahdo aynuna ku bikrada u naqaano xubkaasi wuu furan yahay markaas xub wada xiran ma aha uu daloolaa inkasta oo daloolka uu daloolo mid fartu ka dhaxbaxaysa aanu ahayn laakiin mararka qaar hadii qofka iska caadiga uu sidaahdo ku ogow waxa dhici karaba xataa bikrada hadii uu gaaro inuu daloolkii afka saarayo oo markaa gabadhii iyo bikra uu malaynayo inaanay bikra ahayn oo meeshii qaybtii furnayd ay fartu kaga dhacayso markaas laakiin dhakhtarku waxa uu ogsoon yahay bikradu qaabka ay u furan tahay iyo nooca bikrada qaabka sida uu farta ugu wareejinayo iyo bikradu qaabka ay tahay ayuu dhakhtarku garanayaa marka way u fududahay isaga inuu ku ogaado farta asal ahaan qofka ninka caadiga ahi maadaama oo aanu isagu markaas qaabka farta lagu ogaanayo aanu fahmi karin kuma ogaan karo sidoo kale gabadha uu farta doonayo inuu ku ogaado bikradeedana waxay ku xirantahay daada waxay tilmaamaan dhaqaatiirta qaybta haweenka ku takhasusay inay haweenaydu marka ay yar tahay bikradeedu ay dhowdahay laakiin marka ay weynaato sida jidhku uu gorayo ee jidhku uu fogaanayo ay jidhka la gorayso sidoo kale marka ay yar tahay bikradu sida u furan tahay na ay yar tahay laakiin markan ay weynaato haweenaydu sida jidhkeedu uu weynaanayo ayaa furnaanshaha bikrada lafteediina ay u sii weynaanaysaa oo gabadhii iyadoo gabadha oo laakiin weynaatay oo bikra ah ayaa haddana intii furnayd ee bikradu sida jidhku uu weynaaday uu weynaanaya marka haddaad tiraa fartii baan ku eegayaa bikrada intii yarayd ee furnayd ayaa laga yaabaa inay dabacday ama ay waxoogaa sida jidhku u weynaaday u weynaatay oo markaa ay ka dhex baxdo kadibna aad u malayso gabadhan inaanay bikra ahayn marka arrintaasi arrin ninku si toos ah ugu ogaan karo maaha inuu markaa gabadha gacantiisa sidoo kale gacanta in xubinka taranka haweeneyda la galiyo dhaqaatiirtu way ka digaan sababta uga digaana waxa kamida gacantu waxay leedahay microorganism pathogen ah oo hadii xubinka taranka haweeneyda la galiyo keeni karta infection iyo caabuq yani gacantii safe maaha bacteria iyo waxyaalaha saarnaan kara xubinkii taranka haweeneyda hadii la gaarsiiyo oo la galiyo caabuqyay keeni karta oo ka dhalan kara marka arrintaasi arrin caafimaad ahaan habboon oo sax ah maaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.